habe wanaagsan saaxiibayaal u jeergarooba wararkeena caawa waa Arbaco Khamiis ay soo galayso waana 3 Diseembar 2020 saaxiibayaal caawana wararkeena kuwada ugu waaweyn waxa qayb ka ah xogo cusub ayaa laga helayaa shirarka gaargaarka ka soconaya magaalada Garowe caasimada Puntland in natiijo hordhaca oo durbaan ogaanay madhabaaseen madaxweynayaasha maamulada Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle in laga reebo shirka maanta ka furmaya Garowe sababaha looga reebay waxa kale oo aad u doontaan maxaa ka jira in Cabdiraxmaan Cabshakuur qudhiisa loo diiday ka qaybgalka shirka maanta ka furmaya magaalada Garowe wax walba oo ku saabsan sheekooyinka shirka Garowe ka furmaya iyo kulamada siyaasadeed ee halkaas ka soconaya ayaa qayb ka ah wararkeena maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe Cabdi Xaashi kulankii xalay ku dhaxmaray Garowe iyo sheekooyin ku saabsan weerar sababay dhimasho dhaawac oo laga geystay gobolkaasi Hiiraan iyo xiisado culus oo wali gobolkaasi ka jira guddiga doorashooyinka ee heer dowlad goboleed oo dib ugu laabanaya gobolada ay ka yimaadeen saraakiisha ciidanka danam oo walaa xooga ka muujinaya isku dayga siyaasadeed ee dowladdu ay doonayso in ciidamadaas ay u adeegsato siyaasadaha dalka ka jira qodobadaasi kuba kale ayaa qayb ka ah wararkeena saaxiibayaal kamid noqo saaxiibada ku xiran channelkeena oo subscribe dheh gambalelkana taabo si ay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada gaarka ee halkan aan ku baahino saaxiibayaal kuma astanid hadii ay tahay saaxiibo nagu soo biiray iyo kuwa hore la socdaba aynu ku bilaabnay xogo cusub ayaa laga helayaa shirarka gaargaarka ee ka soconaya magaalada Garowe caasimada Puntland iyadoo xogo gaar ah helino shirarka maanta laga yaabo inay ka furmaan magaaladaasi magaalada Garowe caasimada maamulkaasi Puntland ayaa saacadii ugu dambeeyay ama la soo dhaafo waxa kulamo gooni ah ku wada qaadanayay madaxda dowladda federaalka kuwa mucaaradka iyo muxaafadka intaba ku sugan halkaas iyo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ee lagu casuumay shirka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo waliba gudoomiyaha aqalka sare madaxweynaha Jubbaland ayaa dhamaantoodba kulamo gaar ah ku qaatay magaalada kuwaas oo diiradda ku saarayay sidii looga hadli lahaa xaaladaha dalka ka jira gaar ahaan jahwareerka arrimaha doorashooyinka iyo sidii loo heli lahaa jawi xasiloon oo doorashada ay ku qabsoonto sidoo kale waxa kulanka Garowe ku yeeshay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed Qadar iyo Daahir Maxamuud Geelle oo isna kamid ah musharaxiinta kuwaas iska xog wareystay xaaladda guud ee dalka iyo kala guurka sidoo kale mas'uuliyiinta magaalada Garowe ku kulmay waxa kamid ah gudoomiyaha golaha shacabka Cabdi Xaashi Cabdilaahi iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdilaahi Dani madaxda dhammaan isugu jira muxaafidka iyo mucaaradka iyo magaalada Garowe waxay ka wadaan kulamo gaar ah oo lagu arinsanayo shirka madasha aragti wadaaga ah ee macadka Heritage soo qaban qaabay kaas oo gelinka dambe maanta lagu wado inuu ka furmo magaalada Garowe caasimada Puntland hogaamiyaasha mucaaradka ayaa halkaas galaangal badan ka dhex sameynaya inkastoo xogaan helin ay sheegayaan in Cabdiraxmaan Cabshakuur Warsame loo diiday inuu qayb ka noqdo xubnaha ku shiraya magaalada Garowe aan la siinin casuumaad lama hubo ilaa hadda sababta keentay in ama sababaha looga reebay Cabdiraxmaan Cabshakuur kulamada ay shirka ka dhacaya magaalada Garowe caasimada Puntland dhinaca kale daawadayaal xogaan ayaa sheegaya in shirka Garowe aysan qayb ka ahayn madaxweynayaasha labada maamul ee Hirshabelle iyo waliba Koonfur Galbeed Cali Guudlaabe iyo madaxweyne Cabdilcasiis Laftagareen labadan hogaamiye ayaa la sheegay inaan la siinin casuumaad ay ka qaybgalka shirkaasi taas aan la ogeyn cid ka dambeysay laakiin warar lagu kalsoonaan karan ayaa sheegay labadan maamul sababta lagu casuum way shirka ay qayb ka tahay ayaga oo saaxiibtinimo dhow kala dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo Villa Soomaaliya taas oo keentay in qaarkood aan loo arkin kuwo micno weyn u leh shirkaasi ka qaybgalkooda ila lagu kalsoonaan karo Garowe ku sugan oo la xiriirnayeen wax ka weydiin arintan waxay soo sheegeen in go'aanka xubnahan lagu casuumay ay ahayd mid ay go'aan ku gaareen hogaamiyaasha kale ee shirka ka qaybgalay oo ugu horeeyay madaxweynaha Puntland iyo waliba kan Jubbaland iyo qaar kamid ah hogaamiyaasha mucaaradka kuwaas oo dalbaday hadiiba ay waadii shirkaasi ka dhacay Garowe in ahmiyad gaar ah la siinin xubnaha kale ee loo arko inay kuwa Villa Soomaaliya ku xiran inkastoo ila wareejo inta ka duwan oo isla macadka Heritage qaar kamid ah oo aan la xiriirin arintan ay nala wadaageen ayaa waxa la sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdilcasiis Laftagareen la gaarsiiyay ka qaybgalka arintan invitation kana loo geeyay hase yeeshee qudhiisu ka cudur daartay inuu Garowe tago waxaana ila wareedo lagu kalsoonaan karaa inuu xaqiijiyay Laftagareen uu kamid yahay dadkii lagu casuumay shirka hase yeeshee uu ka cudur daartay halka Cali Guudlaabe wali aan la soo gaarsiin munaasabada ama invitation-ka kaga qayb gali lahaa
wararkii ugu dambeeyay ee shirka Garowe haddaan isdul istaagno magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal ayaa lagu wadaa in maanta gelinka dambe uu ka furmo shirka madasha aragti wadaaga ee ay soo qaban qaabisay macadka Heritage kaas oo diyaarintiisa iyo waliba qaban qaabadiisa Heritage ay lahayn loogana hadlayo arrimo badan oo ku saabsan doorashooyinka dib u dhac ayaa ku yimid sababo la xiriira hoolkii lagu qaban lahaa shirkaas oo dadka ka batay shirweynahan waa mid xasaasi ayaa waxa ka qayb galaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka Maadi Maxamed Guuleed qaar ka mid madaxda maamul goboleedyada gudoonka labada aqal musharaxiinta mucaaradka ururada bulshada rayidka madasha aragti wadaaga ayaa waxa looga hadli doonaa qodobo dhowr ah wuxuuna socon doonaa 3 cisho sanadkiiba mar ayaa la qabtaa sanadkaas waxa diiradda lagu saari doonaa 2025 waxyaabaha Soomaaliya u baahan tahay in laga qabto sida ka bixitaanka ku meel gaarnimada dhameystirka dastuurka qabashada doorasho qof iyo cod ah iyo nidaamka federalismka oo dalka u qaatay in guud ahaan la hirgeliyo sidoo kale waxaa ka qayb gali doona shirka sanadlaha ee isugu jira waa shirka sanadlaha ee ka dhacay Garowe mucaaradka iyo muxaafadka kuwaas oo ina galabta khudbado ka jeedin doona ammaanka magaalada ayaa si weyn loo adkeeyay iyadoo magaalada Garowe lagu daadiyay ciidamo badan haddaba ka soo koow shirkani furmaya dhinaca kale maxay ka wada hadleen Axmed Madoobe iyo Cabdi Xaashi oo la soo warinayna kulankii ugu waqtiga dheer halkaas ay ku wada qaateen faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa kulan xalay waqti dheer qaatay magaalada Garowe xarunta gobolka Nugaal uu ku dhaxmaray xubno ka tirsan madasha xisbiyada iyo waliba madaxweynaha Jubbaland iyo gudoomiyaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi iyo senator ka soo jeeda Jubbaland iyo waliba Somaliland kulankan oo mid xasaasi ah waxa diiradda lagu saaray xaaladda dalka gaar ahaan muranka ka taagan doorashooyinka dalka dhinacyadana oo muujiyay walaaca ay ka qabaan diidmada iyo hanaanka wax u socdaan jahwareerka doorashada ay wajahayso afayeenka midowga musharaxiinta Ridwaan Xirsi Maxamed oo la hadlay wariyaasha oo ka warbixinaya kulankan ayaa sheegay in sanadkan kulankan waa mid dhinacyadu ay ku eegayeen duruufaha ku geedaama doorashooyinka 2020 sidoo kale wuxuu intaa ku daray inay ka wada hadleen laba qodob oo kaliya oo ahaa walaaca ugu laga muujinayo doorashooyinka habsami socodka doorashada dalka gaar ahaan gobolada waqooyi iyo sidoo kale ciidamada dawladda federaalka ee ku sugan gobolkaas gudaha loogu soo celin lahaa ugu dambeyn Ridwaan Xirsi Maxamed ayaa hoosta ka xariiqay hadii aan xal midaysan laga helin doodaha taagan doorashooyinka ay noqon karto mid si daba dheeraata rajaduna ay xumaato si kastaba mas'uuliyiin kala duwan ayaa Garowe ku sugan waxaan halkaasi ka furmaya shirkan wixii war ay ku soo kordha shirka Garowe iyo kulamada saraargana saaxiibayaal wararkeena dambe ayaa naga xasuusina hadduu Ilaahay raali ka noqdo haddaba daawadayaal ee isla wararka doorashada intaanan ka bixin ee guddiga doorashada ee lagu murusan yahay ayaa xubno ka mid ah guddigaasi loogu yeeray inay dib ugu soo laabtaan xarumaha maamul goboleedyadu ay markii hore ay ka tageen janaalkiin ayaa ogaaday in bisha Janaayo sanadkan cusub xubno ka mid ah guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ay dib ugu laaban doonaan deegaanada ay maamulayeen guddiga heer federaal dowlad goboleedyada ayaa waxa ka kooban min 11 xubnood ayaa la filayaa inay tagaan magaalooyinka Baydhabo Jowhar iyo Dhuusamareeb waxaana la sheegay inay qaban doonaan doorashada xubnaha aqalka sare ee xildhibaanada baarlamaanka qaar ka mid ah xubnaha guddiga heer dowlad goboleed ayaa sheegaya in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ay la hadleen qaar ka mid maamulada dalka ka jira ayna kala hadleen sidii guddiga loo sii lahaa xorriyadooda shaqadooda ay u bilaabi lahaayeen si kastaba waxaana caddeyn sida ay wax u dhici doonaan marka xubnahan ay ku laabtaan magaalooyinka aan soo sheegnay iyadoo inta badan madaxda maamul goboleedyada aysan doonayn in la gudagalo doorasho aan raali laga wada ahayn taasoo qaarkood la sheegayo in si gaar ah kaga cagajiitamayaan labada maamul Hirshabelle iyo Galmudug kuwaas oo u muuqanaya kuwa go'aanka dawladda ka soo horjeestay sidaan xogta aan ku helnay waxay sheegayeen in guddigan ay wajahayaan dhibaatooyin dhinacyo badan kaga imaanaya xubnaha mucaaradka oo diidan guddigan jiritaankiisa maamulada dalka qaarkood ayna caqabad kale u arka sida Puntland Jubbaland iyo waliba Galmudug oo hadda ku soo biirtay guddiga heer federaal ee lagu murusan yahay ayaa mar labaad soo saaray jadwal cusub oo doorasho oo bilaabanaya 16 December balse durbadiiba ay guul dareysteen inuu dhaqan galo jadwalkaasi qoraal ka soo baxay guddiga waxa lagu sheegay in waqtiga la gaarsiin doono ilaa 5 bisha Janaayo ee toddobaadka dambe ee soo socda guddigan ayaa lagu wadaa in madaxda xubnaha dowlad goboleedyada federaalka lagu qasbo codsiyada musharaxiinta aqalka sare inay ku ekaato 5 bisha Janaayo halka tartamayaasha kuraasta xildhibaanada aqalka sare ay bilaaban doonto 7 ilaa 14 Janaayo sida lagu xusay qoraalka ka soo baxay xubnaha guddigan waxaase la ogeyn sida ay wax walba ay noqon karaan
saraakiisha ciidanka danabna walaa xoogan ay ka muujiyeen isku dayga siyaasadda loo adeegsan rabo ciidamadan ee dowladda federaalka ay qorsheynayso iyadoo warar kala duwan ay soo baxayaan iyadoo ciidamadan Mareykanku ay tababaraan ee Soomaalida ay loo yaqaan saraakiisha ciidanka danab ay hadda ku sugan dalka kuwaas oo qaarkood cabsi xoogan ka muujinaya hanaanka madaxda dowladda federaalka ay u adeegsanayaan ciidamadan iyo waliba faragelinta siyaasadda markii hore hadii dowladdu ay isku daydo in faragelin ciidanka danab u adeegsato xubnaha mucaaradka taasi waxay keeni kartaa in Mareykanka uu joojiyo dhammaan taageerada dhaqaale uu siinayay ciidanka danab ayaa lagu yiri qoraal lagu daabacay Washington Post kaas oo ay soo xiganayeen sarkaal ka tirsan militariga oo lagu magacaabo Axmed Cabdullaahi Sheekh oo kamid ah saraakiisha danab qaybna ka ah saraakiisha 2006 ilaa 2019 ee hogaaminayay ciidankan taasi waxay shuruud adag Mareykanka ay ku xiri doonaan inay bilaabaan tababarada iyo caawinaada ciidamada ay siiyaan hadii ciidamada danab ee Mareykanka uu tababaro la siyaasadeeyo ama siyaasad loo adeegsado ama xitaa awoodo sharciga ka fog loo adeegsado ayuu yiri sarkaalkan Axmed saraakiisha kale waxay sheegeen in kastoo hadda uu soconayo faragelin baaxad weyn oo siyaasadda lagu sameynayo hoggaanka ciidanka danab ciidanka waxay ka kooban yihiin 150 askari kuwaas oo hadda dowladda u yeertay inay soo galaan magaalada Muqdisho sarkaal ka tirsan danab oo fadhigiisu ee magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya inay ka walaacsan sumcadda ciidanka tan iyo markii ay soo baxeen jawaareero badan oo ciidanka la sheegay in loo adeegsanayo danaha siyaasadda ee dowladda federaalka ay rabto cabsida ugu weyn ee iminka ayaa ah in dowladdu ay lumiso sumcadda iyo waliba taageerada Mareykanka ayuu yiri sarkaalkan hadii ciidamadan si gaar ah loo adeegsado danaha siyaasadda iyo duulaan ay ku qaado shakhsiyaad dowladdu u aragto in ay dowladdu caqabad ku yihiin wasiirka difaaca Soomaaliya Xuseen Xasan Xaaji kama uusan jawaabin dhammaanba eedeymaha loo soo jeediyay saraakiisha ciidamada danab maadaama uu wasiirka gaashaandhigga taliska ciidanka Mareykanka Africom ayaa sheegay Mareykanka uusan wax xiriir ah uu joojin doono xiriirkiisa dhanka dhaqaalaha iyo tababarada iyo waliba qorshayaasha kale ciidamada Soomaalida lagu tababaro hadii saraakiisha ciidamada Soomaalida danab iyo ciidankuba loo adeegsado arrimaha siyaasadda taas oo abuuri karta xasarado siyaasadeed oo dalka ah iyo waliba dhibaatooyin kale waxaana sidoo kale la yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu digayaa adeegsiga ciidamada qalabka sida garan kuwa danab inuu u adeegsado danaha gaarka ah sidoo kale waxa loogu digin ciidamada haramcad gorgor oo kuwa Turkiga ay tababaraan inaan loo isticmaalin xaaladaha dalka ka jira waxaana hore loogu eedeeyay dowladdu in ciidamadaas ay u isticmaashay maamulada Jubbaland Galmudug iyo waliba Koonfur Galbeed oo la sheegay dhammaan ciidamadaas la geeyay halkaas oo howlgal gaar ay ka soo fuliyeen dowladda federaalka ayaa wajahaysa eedeymo badan oo kaga imaanaya saraakiisha Mareykanka weerar sababay dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay gobolkaasi Hiiraan wararka laga helay gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sheegay in saacadii la soo dhaafay maleeshiyad hubeysan weerar dhabagal ah ay ka fuliyeen qaybo kamid ah gobolkaasi maleeshiyadka ayaa lagu soo waramay in rasaas ay ku fureen gaari ay la socdeen dad shacab ah xilli uu marayay intuu dhaxaysa degmooyinka Matabaan iyo magaalada Beledweyne ugu yaraan hal qof ayaa ku dhintay weerarkaas iyadoo lagu soo waramay laba kamid ah askartaasi ay ku dhaawacmeen wararku waxay inta ku dareen kooxda ka dambeysay falkaasi goobta iskaga baxsadeen kadib markii ciidamadu ay baadi goobayeen sidoo kale waxay wararku inta ku dareen in dhacdadan ay salka ku hayso dilal aanooyin qabiila oo maalmihii dambe ka dhacay gobolkaasi Hiiraan wali ma jirto wax hadal ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka ah gobolka gaar ahaan Hiirshabelle ku saabsan xiisadahan xaaladaha ayaa ah mid aad u kacsan balse ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa dhowrkii toddobaad ugu dambeeyay howlgallo isdaba joog ah ka sameeyay magaalada Beledweyne ee gobolkaasi Hiiraan hagaag daawadayaal warbixinadan ayaa ugu waaweynaa wararkeennii maanta wanaagsan